iyada oo maalinta berri ah lagu wado in wejiga labaad ee shirka nabadaynta tolalka walaalaha ah ee dega galbeedka gobolka Mudug uu ka furmo magaalada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa maanta si wanaagsan loogu soo dhaweeyay magaalada Galdogob ergada ka soo kicitay deegaamo ka mid ah Galmudug Soomaaliya dadkii midowye maanta waa maalin weyne maanta qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Galdogob oo isugu jira dhaqanka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi ayaa si diiran meel ka baxsan magaalada ugu soo dhaweeyay walaalahooda kale ee halkan uu uga furmayo shirka nabadaynta labada tol ee walaalaha ah ee dega galbeedkan gobolka Mudug oo uu shir uga furmayo halkaasi Soomaaliya toos gutiisayay tababina taayare ageera wariine kadib soo dhaweynta banaanka magaalada ka dhacday ayaa waxa waftiga loo galbiyay goob loogu talagalay oo qada sharaf lagu sameeyay munaasabadaasi qada sharafta ayd kadib maanta gelin dambe ayaa waxa goobtaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxa shirka furay ugaas cali ugaas maxamed لا خير في كثير من وجوههم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما آية داس سورة النساء كتشده بقولية طوانية أفر آية دها قرآن كوكلاء وسيدي الله الشيغي هذا أرنت أسعته وحكى لما تشيران معروف iyo islaam iyo sadaqo iyo khayr isugu imaad aan jirin ayadii baanu isugu nimid ayadaan walaalahay ku soo dhaweynaynaa oo awal hawshu ku soo dhamaatay bandiiradey waxaanu leenahay soo dhawaada walaalayaal waa aad mahadsantihiin waxaad ku soo dhawaataan kalgacal iyo wanaag iyo qalbi wanaagsanaan iyo khayr isla wad ilaahay hanoo hirgeliyaan walaana ilaahay waxaanu ka baryaynaa arinta maanta la wado oo raal uu ka yahay oo asagu leeyahay saa ku socda ilaahay noo hirgeliyaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay noo socoto nabadaas iyo wanaagaas iyo israbitinkaas iyo isjeclaykaas iyo isu socodkaas ilaahay asaasaan ku baraynaa Dr. Cabdicasiis Cali Ugaaso isaguna ka hadlay munaasabadaasi ayaa fariin u diray bulshada magaalada Galdogob kulana dardaarmay inay si wanaagsan u soo dhaweeyaan walaalahooda kale ee ka soo kicitay deegaamada kale ee dariska la ah anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca boqortooyada Tanade ee reer Ugaas Maxamed iyo magaca beesha gogasha dhigtay ee Tanade iyo magaca degmada Galdogob iyo dhammaan bulshaweynta ku nool degmada Galdogob waxaan idin leeyahay walaalaha inoo yimid soo dhawaada waxaad ku soo dhawaataan gacmo furan waxaad ku soo dhawaataan qalbi furan waxaad ku soo dhawaataan gurigiinii labaad waxaad ku soo dhawaataan gacaltooyo waxaan uga mahad celinayaa dhammaan dadka halkan jooga goobtan sharafta leh soo ajiibitaankii ay soo ajiibeen qadada aan ku sharafnay fadhiga koowaad ee soo dhaweynta annagoo ah qoyska reer Ugaas Maxamed waxaan diri doonaa dhowr baaq ilaa 5 baaq waxaan ku hadli doonaa afka beesha Tanade ama leelkase baaqa koowaad ee aan dirayo waxaan u dirayaa reer Galdogob waxaan leeyahay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri idaa ataakum كريم قوم فاكرموه وفي رواية إذا جاءكم كريم قوم فاكرموه هدو إذن مادو عد قف كرامة كره ومسؤول كأه هيرا كره هدو إذن مادو كرامية ومسؤولية سكو كرامية معنى هذا وحي تهي وحا إنو يميد لابنتي مسؤولينتي دولتها heer federaal iyo heer maamul goboleed madax dhaqameedkii nabadoonnadii culimmadii haweenkii ganacsatadii iyo dhalinyaradii iyo in kale oo ka badan oo walaalahan saacada sidaa daraaddeed dadka kuramada ah ee ku karaamaysnaa deegaankoodii hadday deegaankoodii labaad yimaadeen waxaan u baahannahay inaan imtithaalan liqowlihi sallallahu alayhi wasallam
idaa jaa'akum kariima qowmin fakrimuuh inaan karaamayno. nabadoon cismaan nuur qayd oo ka mid ah ergada socotada ah ee magaalada galdogob lagu soo dhoweeyey ayaa isaguna hadal ka qaatay. reer galdogob waan u nimid galabtay oo casir axadaad ah waxaan ugu nimid wanaaggii aan ku wada hadallay. ilaahay baan uga mahadhaynaa. ilaahay haddana waxaan uga mahad celinaynaa ilaahayna garansiiyey nabaddaas wanaagsan iyo israbiitinka wanaagsan iyo wixii foosha xumaa ka qoobeyntooda ilaahay baan uga mahad celinaynaa. ilaahay inuuna waafajiyo oo uu naga aqbalo baan ilaahay ka baryaynaa. taariikhda goor horey gasho galdogob waa xarun gobeed galdogob waa xarun gobeed gabar qurxoon yaa gelyadiin gabar qurxoon yaa gelyadiin galdogobay u gaaryihiin gabar qurxoon yaa gelyadiin galdogobay u gaaryihiin. bal u fiirsada hadde saan soomaaliya u heshiina wax u noqon aan linka mashquuliyey marka gacanta isqabsada midooba soomaaliya horkaca. marka waxaan leeyahay maanta dadkii isku diri jiray meeshaan waa tageen waa u dhammaatay. ku daadato danaysta waa ku daadato danaysta waa ku daadato dib dambe loo dagaalima danaysta waa ku daadato dib dambe loo dagaalima duhurgaashow dagaalya dhig dadkaanu waa ka dayriyaan dufku bax kii dagaal waadow dadkoo dhammaaba ka dide dufku bax kii dagaal waadow dadkoo dhammaaba ka dide. gabagabadii munaasabadda waxaa hadal ka qaatay suldaan cabdinaasir jaamac seed oo kulanka soo xiray. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa horayna na isugu kaayo keenay oo heshiiskii ka horreeyeyna waafajiyey raggii ka shaqeeyey oo sanatarradu ugu horreeyeen iyo jenaraalada iyo odayaashii iyo culamaa udiinka kaabahayey iyagana ilaahay ha ka amaalmariyo naxariis iyo jannaha ugu beddelo. shirkan ku xiga intan nagu soo dhoweysay oo magaaladii goldogob aan maanta qof ka harin oo bannaanka u soo baxday dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waa arkaynaa siday nabaddu idinkaga go'an tahay annaguna waxaan idiin sidnaa mid ayada lamid ah haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu idmo. runtii aan kala har lahayn waana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynayaa inaan noqoto nabaddaani mid miro dhasha oo dalkan iyo deegaankan dadnimadoodii iyo xasilloonidoodii iyo sharaftoodii soo celiya. sida loo sheegayna waxaan filaynaa inaan gaarsiino gobolka mudug intiisa kale iyo gobollada kale oo Soomaaliyeedba haddii alla yiraahdo. magaalada galdogob ee gobolka mudug ayaa lagu wadaa in shirkani uu muddo 7 casho ka socdo iyadoo halkaasi isugu yimaadeen ergada shirkaasi labada beelood ee walaalaha ah oo wajigii hore ee shirku uu ugu soo xirmay magaalada Bandiradley ee gobolka mudug. maxamed xasan dhalo warbaahinta Daljir galdogob gobolka mudug.